kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal waxaynu qodobkan ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda qalafsan ee dalka Itoobiya ka tagan magaalada Dhicisoobay ee xarunta dalka Itoobiya xalay waxa ka dhacay wax lagu tilmaamay Afgambi Dhicisoobay haddaba sidee wax u dhacay xogihii ugu dambeeyay ayaan warar iyo waliba xoga idinka hayna sidoo kale waxa la sheegayaa in khilaaf uu soo kala dhaxgalay رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد يمدحونها دلكاسي سهلة وركة iyadana xog ayaan idin ka haynaa waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada dalka Itoobiya iyo halka uu ku dambeeyay gulufkii uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee uu sheegay isagu inuu horkacayo waxa arrimahan oo dhan soo indheeyay aadna u soo eegay guuleed alifle isaga ayaan wax ka weydiin doonaa dhowr iyo 10 daqiiqo ee fooda inagu soo haya guuleed soo dhawow Itoobiya iyo xaaladeeda maxaa u dambeeyay Dhicisoobay maxaa ka dhacay iyada ku horeyno oo xalay aad loo hadal hayay waxa weeye kadib markii dhacdooyin cusub ay ka soo cusboonaadeen aad baad mahadsan tahay wariyeelka casada wadayaasheena waa salaamaya intaas kadib xalay magaalada Dhicisoobay laga maseexanin fiidkii hore xalay waxaa magaalada Dhicisoobay lagu arkay wadooyinkeeda ciidamo fara badan oo military ah iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada baan ilaahdo oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ee tiknikada ah kuwaasi oo lagu fasaxay oo dhexmarayay wadooyinka caasimadda dalka Itoobiya looga arrimiyo Dhicisoobay markii hore waxaa loo qaatay inay tahay arrin amniga lagu sugayo iyo dowlatus ay sameynayaan ciidamada dawladdu si ay u xaqiijiyaan in amniga magaaladu uu degan yahay intaas markii loo fasirtay warbaahinta iyo dadka social media wax ku qoray inta ay isdhex qaadeen haddana daqiiqada yar kadib waxaa soo baxday war kale oo ah in ay maxaabiistii arrimaha siyaasadda u xidhnaa dawladda u xidhnaa xabsiyada ay ku jireen ciidamadana ay kala baxeen warkaas haddana si weyn loo tabiyay oo in badan saacado ah waliba haystay warbaahinta haystay kolba meel say uga hada dhacaysay markii dambe waxaa la yiri oo saaka xogaha la helaya ay xaqiijinayaan ciidankii faraha badnaa ee militariga ahaa tiknikadii iyo maxaan ku yiraahdaa dhaqdhaqaaqi xalay ah caasimadda Dhicisoobay ka jiray in uu ahaa Afgambi Dhicisoobay yaa wada markaa Afgambi afgambigan waxa la leeyahay general Dabele yaa horbooday waxaan ognahay in saraakiishii ciidamada inta badan iyo ra'iisul wasaarihiiba ay furinta aadeen oo magaalada Dhicisoobay ahayd ay laga batagayba inta badan ay mas'uuliyiintii ka tageen marka general Dabele oo cid dabada ka riixaysa aan la garanaynin iyo isaga in ku dhow yaa qorsheeyay baa la leeyahay Afgambi Dhicisoobay oo ay la damacsanaayeen maadaama ninkii korneelka Abiy ahaa uu furinta iska xaadiriyay in meeshiiba iyadoo lagu kala tagay oo madaxtooyadii laga arriminay soo laabto ma soo laaban maayay waa laga takhalusay oo meelaha u cararo marka Afgambigani Dhicisoobay ee la leeyahay wuu fashilmay waxaa fashiliyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ee la shaqeynayay markii hore Dabele markii dambe ay arintii soo baxdayna waxa la leeyahay Abiy Ahmed hoos baa arintii u daji sababtoo ah hadda haduu yiraahdo isagoo furintii dagaalka jira Afgambi waa fashiliyay hawl kale noqonaysa waa wax kale waa muujid kale ku furantay marka iyadoo oo taa laga cararayo lagana xidaaraysanayo in ay noqoto furimo kale oo dawladdu ku furmay iyadoo marka hore tabar dareed iska circiireysay dhaqaalihii gabaabsi yahay dagaalkii aad ogtahay waxay hayeen xal iyo xoog weyn isugu geeyeen dawladda dhexe Abiy Ahmed haddana inuu yiraahdo generaalada qayb kamid ah ee Afgambi Dhicisoobay kaga soo tagay nabaday meeshii waa lagu kala tagay wax kale ku noqotay marka xogahan hadda soo baxaya waxa la sheegayaa in si hoose loo maydhay gacmo geli jiro soo dhaqaaqay waa la dajiyay dabalihi baa loo yeero waxa la iimaanka laga qaadi hadda xaaladdu xun tahay meeshaan hadda afli wax ku jiray balbaaya kala aan ugu furin marka dabalihi sidaas lagu xaliyay arintiisii Afgambiga xalay Dhicissoobayna oo markii hore inuu fashilmo ay qayb ka ahaayeen ciidamadii markii horeba hawsha wax ka watay ay qayb ka ahaayeen inuu markii hore fashilmo markii dambana in la xisaabtamo isla saraakiishan ay ka xidaareysatay ama ka xidaareystay Abiy Ahmed oo uu san doonaynin inay banaanka waxaan u soo baxaan sababtoo ah heer galbeedna meeshan uu taagan yahay oo
وكاسي ماشنا بلاي كاسي دعي سادة لهيا qoladii kalena meeshan ay soo socotaa marka furimaha inuu isku furo yuu diiday baa leeyahay marka la isku soo xorxoriyo maxaabiisna lama bixin amnina xalay lama sugaynin waxaa jirtay afgambiga Dhicisoobay oo ay saraakiishaas hogaaminayeen oo ay doonayeen inay hawsha dhanka kale u gadiyaan waxa aad u maadsan tahay muxuu yahay khilaafka la sheegay soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalkaasi Sahla Warki horta khilaafkan hadda unbuu moodaa inuu soo shaabaxay sida rasmiga markii loo sheegana ilaha dawladda waxay ku hadlayso iyo waxay mucaaradka ku hadlayaan laga yimaadana khilaaf uu jira waxaan ognahay Abiy Ahmed iyo Amxaarada oo iswatay markii deegaanka Amxaarada intiisii badnayd laga soo qabsaday lagu soo jabiyay furimihii dagaalka ee dhowrka gaadhayay ilaa iyo 12 gaadhayaan idhaahday in ay iyaga dhexdooda khilaaf ka dhex abuurmay waxaan ogeyn in Amxaaradu ay ku eedeynayso ra'iisul wasaaraha iyo ciidanka Itoobiya inay hakranayeen waxaynu ogeyn in hadallo badan ay dhinacyada ka imanayeen laakiin inta la isku dayay in la qarqariyo Faisal Roble oo ah falanqeeyo arrimaha siyaasadda ee bariga Afrika waxa uu leeyahay anu mar horaan ogaa khilaafka laakiin waxa xaqiiqo ahayd in hoos loo dhigayay oo la qarinayay si aysan muujado kale u furmin gabadhan haweeneydan Sahlawak waa qof degan balay inkastoo xilka ay Itoobiya ka haysay madaxweynaha laftirkiisu iska degan yahay xilkaas saameyn badan ma laha waxay qaban kartaa badanna anigu hadda ma garanayo in la yiraahdo madaxweynaha Itoobiya hadashay ama madaxweynaha Itoobiya wax soo dhaweysay mooyee xil saameyn lama xilkeeda degan markii laga yimaado iyada laftirkeeda qof degan ah Abiy Ahmed waxa lagu xantaa inuu yahay xawaaro sare ku socda waa nin aad u fudud marka bilowgiiba way isla keeni waayeen oo arrimahan Amxaarada salka ku haysa maadaama gabadhan ay Amxaara ka soo jeedo guul darrada faraha badan ee dagaaladii ka soo wajahay waxyaabahaas oo dhan markii la isku dardaro khilaaf baa jiray la qarinay haddaba mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer caalamka oo ka soo baxa Faransiiska oo la yiraahdo The African Report waxa uu leeyahay waraysi uu ka soo xiganayo waa sida iyagu sheegayaan madaxweynaha dalka Itoobiya Sahlawak waxa uu leeyahay Abiy Ahmed Itoobiya waxa uu ku wadaa meel xun ayay tiri gabadhan oo marka wargeyskan waraysiga wala yeeshay saa ku tiri ha wargeyska iyadoo waraysi siinaysa waxay tiri Abiy Ahmed meeshu Itoobiya u wado waa meel xun waraysigu uu dheeraa qaybo kala duwan oo la waxyaabo kala duwan oo uga hadashay xalka iyo maxaan ku yiraahdaa sida iyadoo xolo muuqatay waxyaabo kale laakiin erayga ugu muhiimsanaa waxay tahay in Abiy Ahmed Itoobiya meel daran u wado waxa marka ka soo xigtay wargeyskan The Africa Report-ka warbaahin fara badan oo caalamka ka soo xigtay waraysigan markii intaas dhacday waxa la yiri si kaliisa saacadii ugu dambeysay page-ka ay ku leedahay social media madaxweynaha Itoobiya dhan waxa lagu soo qoray maqaalada meelaha la wareejinayo aan la leeyahay waxay kaga hadashay arrimaha Itoobiya xaaladda Itoobiya wax ka jira malahan waana been cad wax wariyaana ma arag wax soo wacayna ma arag wax waraysi adu ma arag ma oran durba qolyahan aad u falanqeeyay u dhunduleela arrimaha Itoobiya waxay leeyihiin korneelkii Abiy Ahmed aha islaantii intuu xafiiskeedii ugu tagay mise gurigeedii ugu tagay iyo taleefankii ka qaatay marka wax soo qoray isaga isku qorayba waxaan le maqaalada meelaha la wareejinayo waxba kama jiro wariyana ma arag waxay wareystana ma arag waaba isagii baa la leeyahay taleefankii gabadha haysta islaanta haysta gabadhna ma waa islaan weyn marka waa laga dhaxadlayaa hadda afduub bay ku jirtaa marka iyadii ha oo waaba xabsi guri oo waxa soo qoraya ee beeninaya warbaahinta dawladuna intan aad u qaada dhigaysa u wada inaysan waxba cid wareysatay cid wariyaayna arag madaxweynuhu oo laga been sheegayo ee aad u wareejinaysa laakiin waxa lagu soo qoray waa page-keedina waxa la leeyahay Abiy Ahmed yaa gacanta ku dhigo gabadhii way afduubanta marka si kastaba ha noqoto waxa xaqiiqo ah khilaafkan in muddo la soo qarinayo waxa kale oo xaqiiqo ah guul darrada dagaalku markay timaado in madaxa la isla geli oo ay iman in la isku eedeeyo maxaan ku yiraahdaa guul darrada la isku eedeeyo ninba nin u saara adaan noolaha xaqay ka baxday
maxaan ku idhahday lays xagxagan doono si kastaba ha noqoto Abiy Ahmed gabadhii madaxweynaha ka ahay dalka Itoobiya waa uu afduuban tahay telefonkeediina isaga ka dhaxadlaya wargeysadan caalamka ee African Report ay ku jirta ee wareysiga qaaday ahna يعني waliba dalalka hadda ay aadka isugu sii xun yihiin Itoobiya ma aha Faransiiskuna uu ka aamusan yahay arrimaha Itoobiya ka socda midowga Yurub iyo deer galbeedka kale iyo la mowqif yahay laakiin ma aha dalalka cadcad lagu eedeynaya inay faragelin toosa ama dadbanba ay Itoobiya ku hayaan waxay aad ma santay gulido bal dagaaladii iyo hawlgalkii dawladdu ay qaado u dambeeyay rasaaruhu inuu hogaaminayo uu sheegay waxa u dambeeyay iyaga shalay sidii aynu tabinay ilka casow dagaal adag baa dhacay meelo badan bay duqeymo ka dhaceen oo duqeymo laga geystay oo ciidamada cirka ee dalka Itoobiya ay ka geysteen sidoo kale meelaha dagaalo toos oo la iskaga hor yimid aan waxba la isu reebanin ra'iisul wasaarihii waa kii furinta hore u guuray sawirra la soo bandhigay shalay saakana kuwa kala la soo bandhigay kuwii shalay iyo kuwa maanta waxaad moodaa inay aad u kala duwan yihiin sawirradu Abiy Ahmed waxa la leeyahay dabrasina agagaarkeeda iyo furinta hore ee dagaalka dhufayska kaga jira waxa uu ku tagay meeshaasi baabuurta cadcadeeda VID-da ah ee dawladdu lahayd lagu xaragoon jiray ma garan iyo furinta hore ku tagay Abiy Ahmed shalay isagoo dresska militariga xiran baynu ogeyn laakiin maanta sawirada la soo bandhigayo waa kuwa xiran yahay baabuurta cadcadeeda VID-da ah oo ku xaragoonayaba nin furin joogaba uma eg si kastaba ha noqoto dagaalada culus ee meelo kala duwan la isku farasaaray waxa la leeyahay durba khasaare aan markii hore la soo tabin jirin yaa laga soo tabinaya ugu yaraan 70 qof oo shacaba yaa la leeyahay waxay ku dhinteen duqeyn ka dhacday deegaanka Shawa marka madaafiic baa la isla dhacay culus iyo hubka culus baa la isla dhacay diyaaradaha duqeyn geysanayay cid dishay oo dadkaasi hadda lagu eedeynaya si gooni ah lama garanayo laakiin dadka faraha badan ee rayidka 70 ka gaaray yaa la sheegay inay ku dhinteen deegaankaasi sidoo kale deegaanka Canfarta iyo meelaha kale lagu dagaalamay yaa iyagana sidoodii wali la isula hardamaya oo loogu lagatamaya oo dhinacyadu ay isugu mari laayihiin qolo waliba ay wixii ay taban haysay ay meeshaasi isugu geysay dhinacyaduna ay si adag ugu dagaalamayaan wagaag kadib baaqi ra'iisul wasaaraha waxa soo baxay in xisbiya mucaaradaha fanaaniin dad iyagu wax qora intooda badan ay sheegeen in ay ka jawaabayaan baaqaas markaan ay furin dagaalka aadayaan orodyahan caanaha oo ka soo jeeda ama waxa weey Itoobiyana ayaa sheegay baa la yiri in uu dagaalka uu ku biirayo ujeedada hore u tagay bal isaga maxaa xukayna باقي ودري رئيس الوزراء أبي أحمد كوساب سنين ذات كرر إثيوبيا ذات عانك هي مسؤولين قيبه هذا كردوين حزب قتلها هي فرنت دجال كإسكيان ذات بدن بكسر جوابي كوا بدنا على الحنون بشكتين يحنونه يا جاس برايا كله marka adu cudur daaray sheegtaan nimankaas furinta ma tagin kuwa saado hanjabay waa dadka ka soo jeeda qoomiyada Amxaarada mid kamid ah dadka ugu caansan Itoobiya hayla gabrasalaasi oo orodiyaan isagu wuxuu ballan qaaday inuu furinta hore dagaalka tagi doono sidoo marba dabcan saan filayo ma hubo boqolkiiba ma hubo laakiin waa nin aad caan uga Itoobiya hayla gabrasalaasi la yiraahdo ninkaas wuxuu sheegay inuu tagayo furinta hore dagaalka sidoo kale oromkii 2000 iyo lixdii miyahayd bise adugu xilliyadii ay kacdoonka oramada aadka u jireen orodada caalamiga olombikada ka qayb qaadanayay calaamadan ay gamcaha isweydaarsanayaan oramadu soo saaray aad u soo caan bixiyay isaguna wuxuu yiri waan furinta hore tagaya marka dad badan yaa si guud sheegay inay furinta tagayaan ilaa haddana wax furinta ka soo muuqday oo aan Abiy ahayn ma aynu hayno si guud waa laga jawaabay oo hawshii dad badan ba social media kaga jawaabay aad ma sahay guleed daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qodobkan aan ku eegaynay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda qalafsan ee dalka Itoobiya wixii warar ku soo gordha dalka Itoobiya iyo dagaalada ka socda dib ayaan idin kala wadaagi doonaa dib bahawada loo ogolaado qodobkaas intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo saaxiibo